ma qiyaasi kartaa adduunka oo aan lahayn diyaarado adduun ay dadku u arki jireen in shimbiraha oo kaliya ay xaq u leeyihiin inay samada maraan kumanaan sano bini'aadamku waxay ku riyoonayeen inay duulaan qaar waxay isku dhajiyeen baalal shimbireed qaarna waxay ka soo dhaceen buuro dhaadheer iyagoo isla samada ayaad ku duuli doontaan dadka badankoodu waxay aaminsanaayeen in duulistu ay tahay wax aan marnaba macquul ahayn xataa saynisahanadii ugu waaweynaa ee qarnigii 19aad waxay lahaayeen mashiin aad u culus marnaba macquul ma ahan inuu duuli karo laakiin bishii December 1903 laba walaalo ah oo aan haysan shahaado jaamacadeed iyo maalgelin dawladeed oo ku dhex shaqaynayay dukaan yar oo lagu dhex iibiyo baaskiilada ayaa go'aansaday inay jebiyaan sharciyada dabeecadda kani ma ahan kaliya sheeko ku saabsan farsamo iyo matooro waa sheeko ku saabsan adkaysi fashil joogto ah iyo laba maskaxood oo diiday inay dhulka ku sii nagaadaan sidee bay laba nin oo ku dhex jira boorka dukaanka baaskiilada ugu guuleysteen halka ay ku fashilmeen dawlado ayna kaga qasaartay malaayiin dollar maxay shimbiraha ka baran kareen oo dadka kale ay arki waayeen muuqaalkan waxaynu kaga hadlaynaa sheekadii dhabta ahayd ee walaalaha Wilbur iyo Orville Wright kani waa kor u kicii halgankii iyo mucjisadii labadii nin ee dunida siiyay baal ay ku duusho intayna bilaabin sheekada aynu ku sallinaa xabiibkeeni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sheekadu kuma bilaaban garoon diyaaradeed ee waxay ku bilaabatay dukaan yar oo ku yaala magaalada Dayton Ohio walaalaha Wilbur iyo Orville Wright waxay ahaayeen farsamayaqaano aad u heer sareeya sanadii 1892 markii ay dalka Mareykanku baaskiiladu ay ka ahaayeen gaadiidka markaas ugu heerka sareeya waxay furteen Wright Cycle Exchange oo ahayd meel baaskiilada lagu iibin jiray laguna dayactir jiray sidoo kalena lagu kireyn jiray baaskiilku waqtigaas wuxuu ahaa tiknoolajiyada ugu casrisan labadan walaalaha ah kaliya ma iibin jirin baaskiilada balse waxay bilaabeen in ayagu sameystaan baaskiilo u gaar ah oo la yiraahdo Van Cleef iyo St. Clair halkan ayay ka timi sirtii ugu horeysay ee duulista maxay baaskilada ka baran kareen duulista dadka intooda badan waxay u maleeyeen in diyaaraddu ay noqon doonto sidii gaadhi hawada dhex socda mid degan oo aan dhaqdhaqaaq badan lahayn laakiin walaalaha Wright iyagoo isticmaalaya aqoontooda baaskiilka waxay ogaadeen in baaskiilku yahay mid aan deganayn haddii aan la xakamayn sidaas la mid ah diyaaraddu waxay u baahan tahay inuu duuliyuhu dheelitiraa mashiinka sanadii 1896 waxaa dhacday dhacdo bedeshay noloshooda Otto Lilienthal oo ahaa ninkii ugu horeeyay isku dayay inuu u duulo sidii shimbirta ayaa ka soo dhacay buur isagoo tijaabo sameynaya waa uuna dhintay Wilbur markii uu warkaas maqlay wuxuu bilaabay inuu akhriyo buug kasta oo ku saabsan shimbiraha wuxuuna yiri duulistu waa suurtagal laakiin dhibaatada ma ahan matoorka ee waa xakamaynta walaalaha Wright ma ay haysan shaybaad casri ah waxay fariisin jireen webiga agtiisa iyagoo saacado badan daawanayay gorgorka iyo shimbiraha kale Wilbur wuxuu arkay shay cajiib ah shimbirtu marka ay rabto inay leexato ma isticmaasho matoor ee waxay xoogaa qalloocisaa darafyada baalasheeda si ay hawada hal dhinac kor ugu qaado dhinaca kalena hoos ugu dhigto maalin maalmaha kamid ah isagoo dukaanka jooga Wilbur wuxuu gacanta ku qabsaday kartoon dhuuban oo dheer oo kii taayirada baaskiilada lagu soo ridi jiray ah wuxuuna bilaabay inuu kartoonkaas labada daraf ka qalloociyo wuxuuna ogaaday haddii diyaaradda baalasheeda dhinac kor loo qalloociyo dhinaca kalena hoos in ay hawada kor u qaadi doonto hal dhinac farsamadan waxay u bixiyeen wing warping si ay tan u tijaabiyaan waxay marka hore sameeyeen diyaarad ka samaysan kartoon sanadii 1899 waxay magaalada Dayton dhexdeeda ku tijaabiyeen qalabkan iyagoo xadhko ku xukumaya baalasha waxay arkeen in diyaaradii ay u leexanayso sidii ay rabeen hadda waxay u baahnaayeen meel tijaabo dhab ah lagu sameeyo sanadii 1900 waxay weydiin xafiiska hawada halka Mareykanka ugu dabaysha badan waxa loo sheegay Kitahawk oo ku taala North Carolina meeshaas oo ahayd meel saxaro ciida ah oo aan lahayn wax geed ah dadkuna ay ku yaraayeen waxay halkaas ka dhisteen teendooyin kaneecada halkaas joogtana waxay ahayd masiibo aad u daran diyaaradooda ugu horeysay ma lahayn matoor waxay ahayd glider mid dabayl kaliya ku duusha inkastoo ay xoogaa duushay haddana ma aysan soo saarin awood ku filan oo ay qof ku qaado
tijaabadii labaad ee 1901 aad ayay u xumeyd diyaaraddii waxay u dhacday si khaldan xogta sayniska ee waqtigaas jirtayna oo uu iska lahaa saynisyahanka Smithson waxay ahayd mid khaldan Wilbur wuxuu yiri isagoo quustay bini aadamku ma duuli doono laakiin marka ay ku noqdeen Dayton halka ay ka quusan lahaayeen waxay dhisteen Windy Tunnel god dabaysha lagu tijaabiyo ay ku dhex rakibeen dukaankoodii baaskiilada waxay tijaabiyeen in ka badan 200 oo nooc oo balal ah waxay ka sameeyeen bir dhuuban iyo alwaax tijaabooyinkan yar ayaa ka dhigay walaalaha Wright dadka adduunka ugu aqoonta badan dhanka hawada ma jirin qof kale oo adduunkan jooga oo haysta xogta ayagu gacantooda ku qorteen waxay ku noqdeen Kit Hawk oo ahayd meeshii dabaylaha badneyd diyaaraddii 1902 waxay ahayd mid mucjiso ah waxay raacayeen radar baalka dambe ee jihada kaasoo u shaqeynaya si la mid ah wing waabinka hadda waxay xukumi karaan diyaaradda dhinac kasta waxay sameeyeen ku dhawaad 1000 duulimaad oo galiindar ah yacni waxay isticmaalayeen dabayl oo kaliya wax kasta waxay ahaayeen diyaar marka laga reebo hal shay oo ahaa awoodda motorka xilligan waxa la taagan yahay markii loo baahnaa motorka maadaama ay ku soo guuleysteen wax kasta ku saabsan duulista hawada ee dabaysha ahayd si ay motor u helaan waxay codsi u qoreen 10 shirkadood oo motorada sameeya dhamaantood waxay ku jawaabeen ma samayn karno motor yar oo xoog badan halka waxa soo galaya geesiga qarsoona ee sheekada Charlie Taylor wuxuu ahaa farsamayaqaan ka shaqeynayay dukaankoodii baaskiilada isagoo isticmaalaya qalabkii dukaanka baaskiilada Charlie wuxuu muddo 6 toddobaad ah ku dhisay motor aluminium ah oo ahaa bir waqtigaas aad qaali u ahayd motorku wuxuu lahaa 4 cylinder wuxuuna soo saarayay 12 horsepower miisaankiisuna wuxuu ahaa 82 kilogram tani waxay ahayd guul weyn oo tiknoolajiyadeed walaalaha Wright iyagu waxay dhisteen propellerka ama waxa loo yaqaan marwaxadaha waxay ogaadeen in marwaxadu aysan ahayn sidii tii markabka oo biyaha riixaysay balse ay tahay baal wareegaya oo hawada jaraya wax kasta waxay ku dhisteen gacantooda iyagoo isticmaalaya geedka spruce oo ahaa geed laga samaysan jiray alwaaxyada fudud iyo maro cudbi ah oo loo yaqaan muslin subaxii 17 December 1903 Kit Hawk waxa ka jiray baraf iyo dabaylo aad u qabow oo ku socda xawaare dhan 43 kilomitir saacadii waxa goobta joogay kaliya 5 qof oo markhaati ah oo ka yimid xarunta xeebta waxay dhigteen bir dheerarkeedu yahay 60 feet oo diyaaraddu ku duushay ama waxa loo yaqaan launch rail waxay tuurteen qadaadiic ama waxa loo yaqaan xarash si loo ogaado ninka bilaabaya Orville ayaana guuleystay saacadu markay ahayd 10:35 subaxnimo Orville Wright ayaa jiifsaday caloosha diyaaradda isagoo gacanta ku hagaya xakamaynta Wilbur wuxuu taagnaa diyaaradda agteeda isagoo garabka ka haya si uu u dheelitiro bilowga motorkii ayaa bilaabay inuu guuxo diyaaraddiina waxay bilowday inay dhaqaaqdo markii ay gaadhay dhammaadka birta waa ay kacday Orville wuxuu hawada ku jiray 12 ilbiriqsi wuxuuna duulay masaafo dhan 36 mitir dadkii goobta joogay waxay u haysteen in 12 ilbiriqsi ay yar tahay laakiin waxay ahayd markii ugu horeysay taariikhda bini aadamka oo mishiin iskiis u kacay qofna oo uu wado ku soo degay meel la mid ah meesha uu ka kacay isagoo aysan waxba gaarin maalintaas waxay duuleen 4 jeer duulimaadkii ugu dambeeyay ee Wilbur wuxuu hawada ku jiray 59 ilbiriqsi isagoo gooyay masaafo dhan 260 mitir markay dhameeyeen duufaan xoogan ayaa timid oo diyaaraddii ayay rogrogtay taasoo keentay in marnaba dib u duulin diyaaraddaas Wright Flyer 1 haddaba markii ay ku soo laabteen magaaladii ayna u sheegeen in diyaaraddii ay u kacday cidna ay rumaysan weyday markii ay wargeysyada u sheegeen inta badan tafatirayaashu waxay yiraahdeen haddii ay duuleen maxaynu cadeymo ama sawirro u arki la'aanahay dad badan waxay u haysteen inay yihiin kuwa beenalayaal ah dowladda Mareykanka xataa ma rumaysan muddo 3 sano ah walaalaha Wright waxay si qarsoodi ah ugu duulayeen beer ay lahaayeen oo la yiraahdo Huffman Breer oo ku taala Dayton waxay dhisteen diyaaradaha Flyer 2 iyo Flyer 3 halkan waxay ku bartay inay sameeyaan goobo iyo wareegyo hawada dhexdeeda ah sanadii 1908 Wilbur wuxuu tagay Faransiisku waxay rumaysnaayeen inay iyagu ugu fiican yihiin duulista laakiin Wilbur markii uu hawada galay wuxuu tusay farsamo aan la rumaysan karin wuxuu u leexiyay diyaaradda sidii shimbirta oo kale Faransiiska oo dhan ayaa u istaagay si ay u sacbiyaan mid ka mid ah saaxiibadii Lilienthal ayaa yiri waxaan nahay waxba laakiin labada nin ayaa dunida badbaadiyay habeen kaliya waxay ku noqdeen dadka ugu caansan adduunka boqorro iyo madaxweynayaal ayaa u yimid inay arkaan laakiin guushaas iyo farxaddaas waxay keentay dhibaato kale oo aad u weyn walaalaha Wright waxay ahaayeen dad aamusan oo jecel
in shaqadooda ay ilaashadaan. Markii ay dadka kala bilaabeen inay xadaan farsamadooda, Wengi Wabinka waxay galeen dagaal sharciyeed aad u weyn oo waxay dacweeyeen shirkado badan oo uu ku jiro Glenn Curtis. dagaalkan maxkamadaha wuxuu qaatay waqti aad u badan. Wilbur oo ahaa maskaxda sheekada wuxuu ku daalay safarada badan iyo dacwadaha. sanadii 1912 Wilbur wuxuu u dhintay xanuunka typhoid isagoo jira 45 sano oo kaliya. aabihiis ayaa ku qoray xusuus qorkiisa. noloshiisu waxay ahayd mid gaaban laakiin miro dhal badan. Orville wuxuu noolaa 36 sano oo kale. wuxuu iibiyay shirkadda Wright Company 1915 wuxuuna noloshiisa inta ka dhiman ku qaatay inuu ilaaliyo sumcadda walaalkiis. wuxuu indhihiisa ku arkay diyaaradaha oo loo isticmaalay labadii dagaal ee adduunka iyo xitaa bilowgii safarka hawada sare. walaalaha Wright ma aysan haysan wax walba, ma aysan haysan shahaado jaamacadeed, ma aysan haysan maalgelin iyo xog sax ah, laakiin waxay haysteen laba shay oo aan lacag lagu iibin karin: samir iyo wadajir. sirtoodu waxay ahayd in dukaanka dhexdiisa ka wada shaqayn jireen iyagoo isku qabsan jiray fikradaha ilaa ay ka helaan midka saxda ah. waxayna bareen in aqoontu aysan ahayn meesha aad wax ka baratay balse ay tahay waxa gacantaada ku qaban kartid. dheelitirka uu ka muhiimsan yahay awoodda. waxay kaloona bareen inaad fashilanto ma aha dhammaad ee waa bilowga aqoon cusub. maanta marka aad raacdo diyaarad oo aad ka gudubto badaha iyo qaaradaha dhowr saacadood gudahood, xasuuso labadii wiil ee dukaanka baaskilada ka yimid. xasuuso 12 libriqsi ee Keith Hawke. waxay kaloona bareen in bini'aadamka uusan u dhalan inuu dhulka ku nagaado, balse in daruuraha la dhex mara ay tahay cilmi iyo aqoon iskaashaday. kuwani waa Wilbur iyo Orville Wright, kanina waa halgankoodii duulista. haddii aad jeceshay sheekooyinkan oo kale, ha ilaawin inaad like saarto muuqaalka, subscribe-na dhahdo channelka, lana wadaag saaxiibkaaga aan weligiis diyaarad raacin. mahadsanid.